بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإسلامي دمانتي وإسلامنا أصحابنا كلنا شنالك فالمو بيد سالو سلوى ولا ليال ملك سلطة جوتنا تقول على النساء مرة وهي مسح هذه مرة فرد ولا لين قاليا حلو برنامج سكينة تجاري نصيب كعادة عاو كدو يهي كي هوري عاو حاوضنا برنامج لما قاعد بحي markii aad magaciisa maqashaan inaad qosashaan aan malaynaa barnaamijka wuxuu la magac baxay dabagedi marka macnaha waxaa laga wadaa ereyada soomaaliga markii la qoro markii ereyga caadi lagu dhawaaqo in gadaal loo aqriyo marka wax isku toosan ayaan soo hagaajiyey marka dadkaan ayaan rabaa inaan ku xujaysto waa xujo qof walba xujadiisa inuu macnaha وقصة بحال رباه هاي ديار مدين دليا ها ديارنا هاي ديار أم هاي سؤال كستون الويديو ناس استحن أو جوابنا إن شاء الله ديار أنا قلنا هاي إن أوه كستون الويديو عن جوابنا أوكي ما سنتي شرفت بضله وأقبشان برنامجك دلوقتي su-aasheena ugu horeyso waxaan ku bilaabi doonaa Caisha ayaan weydiinaynaa microfonka ayaan u dhiibaynaa kadib ereyga Soomaaliga ayaan ku dhawaaqaynaa kadib gadaal ayay u akrinaysaa way nooga jawaabaysaa ku soo dhawo Caisha marka hore waan dhawahay sida sharafta badan ay soo dhaweyseen waxaan salaamayaa asxaabta ku xiran janalka Faadumo Beauty Salon waxaana halkan diyaar ugu ahay su'aal kasta oo la weydiiyo si saxan ama si toosan inaan uga jawaabo insha Allah hadduu Allah idmo ما شاء الله تبارك الله أكون عصبتها سيد قرح الغضلة يا تصدقي أصحابها عايشة هذه أيام ورايا وجوجها برنامج هو عايشة سؤال عن رعاونا كويتيو هل كان أي كنت ذلك مقطع لكن هذه بحلقانها إن أدخل واقع حكويتينا يا سؤال مقعد يراهو أيام magacayaan in aad gadaal noogu akhriso markaas wuxuu noqonayaa af Soomaali kaleeto oo la isticmaalo ku soo dhawo mar kale waan dhawahay laakiin su-aashaas waan ka fikiraa inkastay waa adag tahay su-aasha markaan hadda isku dayo waxay noqonaysaa nayaab nayaab ay noqonaysaa jawaabta sida aan filayo okay Caisha way ka jawaabtay su-aashii la weydiiyey waxay ahayd ayaan haddii la aqriyo gadaal loo soo aqriyo waxay noqonaysaa naya okay su-aasha labaad waxaan siinayaa sakari ku soo dhawo microfonka su-aashaan waxay sida u dhacaysa si fiican dhageyso waxay u dhacaysaa waa magaca gadaal inaan noogu soo aqriso dabagedsi ayaan rabnaa ku soo dhawo microfonka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وماسنتي دمانتي سيدي شرفت له يا جنالك أوسو مقتي مركزتو هذا وحان كديا سؤاشي لويدية إنان سي صحان وكجوابه إن شاء الله الله إدمو
أصحابي هذا سؤال شيء وذكر يا إن كان جوابه سؤال شو هي راح بس هذه لدبكتيو وهي نقول إساس دام فيلا حر. Okay, waad ku mahadsan tahay Sakariye su-aashaadi koowaad waa nooga jawaabtay ereyga dabagedi rax haddii la dabagediyo waa har waa sax. haddana waxaan u gudbaynaa umaymo kusoo dhawow su-aasha saddexaad oo xaggaaga adigana tan koowaad ku ah oo isla ereyga dabagedi ah. su-aashaan waxaa la yidhaahdaa ama sida loogu dhawaaqayo haddii aan ku dhawaaqo waa gorgor. ereyga gorgor waxaa lagaa rabaa inaad dabagedisid oo siduu yahay aad ugu dhawaaqdid asagoo dabagedis ah. kusoo dhawow umaymo marka adi koowaad su-aashaad ugu horeysa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأكم هاتنتي دعوة يا شكوهلا فاطمة بيوت السالون دعوة يا شكوهلا تنك فاطمة بيوت السالون وأنكم هاتنتي سلوى عن أديسو دويسي سؤال شلويتي وهاي قرقر توكلت اسمه أقل. قرقر توكلت اسمه أقل سنفلايو ورقرو. Okay, daawadayaal umaymo way noogu jawaabtay si qurux badan weliba. meeshaan waa xujo waa ereyga Soomaaliga oo la dabagedinayo. su-aasha afraad ee aan halkan ku haysano waxaa iska leh Caisha saan filaayo waana sidaan ayay u dhacaysaa dabagediska ereyga waa roob caasho dabagedi ugu dhawaaq asagoo af Soomaali ah mar labaad. su-aasha la weydiiyey waxaa weeye dabagedi ereyga roob. haddaan isku dayo siday jawaabtu tahay boor. sidaas ayaan filayaa inay jawaabtu sax ku tahay. maasha allah Caisho way ka jawaabtay su-aashii dabagedi. ereygaas markii hore wuxuu ahaa roob waxayna u bedeshay ugu dabagedisay boor. way ku mahadsan tahay maasha allah tabaaraka allah. su-aasheena shanaad waxaan siinaynaa Sakariye. su-aashaan Sakariye sida u dhacaysa si fiican u dhegeyso. waxay u dhacaysaa ereyga dabagedi af Soomaali. su-aasha daah inaad dabagedisid ayaa lagaa rabaa. ereyga daah dabagedi kula soo dhawow microfonka. su-aashii la weydiiyey ayaa hadda si sax ah uga jawaabaya insha allah sida noqon doonto. su-aashii la weydiiyey waxay ahayd daah balse haddii la dabagediyo waxay noqonaysaa haad. sidaas okay waan soo laabanay wax yar ayaan aadnay nasiino yar. asxaabay su-aashaan lixaad waxaa iska leh maymo. waxaana waaye ereyga oo af Soomaali ah dabagedi. sidaa ay u dhacayso waa sidan waa guur. umaymo guur dabagedi af Soomaali ku sheeg wuxuu yahay. ereyga la weydiiyey waxaa waaye guur. guur haddii la
weydiiyo waxay noqonaysaa ruug. Ruug ayay noqonaysaa ereyga saanfilaayo. Okay, asxaabay umayma way ka jawaabtay maasha allah tabaaraka allah. erey kasta qof kasta oo la weydiiyey qof ku dhaca ma lahan dhammaantood way ka wada jawaabeen ayadoo gadaal loo aqrinaayo. waad ku mahadsantiin. barnaamijkeeniina halkaa ayuu noogu soo gabagaboobay. barnaamijkaa mid lamida intaan ku kulmi doono waxaan idin leenahay barnaamijka noo sheergareeya, like-ta noo saara, commentiga qurux badan nala soo wadaaga, subscribe-tana si aad u ogaato barnaamijka wixii aan kusoo kordhinay waa inoo gambalada furtaa oo subscribe tiraahdaa. insha allah intaan waad mahadsantihiin dhammaantiin, aad iyo aad yaa u mahadsantihiin ka qaybgalayaasha Sakariye, Caaisho iyo Umayma. asxaabta intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo isu soo noqon wanaagsan oo xiiso leh.